هذا مالي مغلا سوداء صاحبي سوداء dhamaantii soo dhawaad wuu iga go-a leefka hore may fahanteen haddaa markaa soo qabanaya dadka asxaabta raba inay hadlaan واك سلامي كان waxaa u maleynayaa inuu live-ka uu ku soo noqday sidii waagii hore Facebook ahaan jiray codkayga ma ku soo gaarayaa wuu soo gaaray sax baa kuu maqlaa hal mar soo dhawaad codkayga ma ku soo gaaraya si fiican codkaas sax baa u maqlaa kaamera bas iska ilaali hal mar igu soo celi waxbaa iga gooyay waa loo maqlaa ahmadow dee adigu okay ahmadow soo codso marka adigu dee soo dhawaada saaxiibe raan lahaa okay hadda okay baa taa soo maaha hadda codkayga sida markaa si fiican baa lagu maqlaa waa salaamay asxaabtana waa salaamayaa dhammaan dadka meesha ku jira run ahaantii waa kaaga mahadcelinayaa mahadaan la soo koobi karin ayaan kaaga mahadcelinayaa sida aad nafhurnimada leh aad dadkaaga aad rabtid inaad uga badbaadiso dhibaatada ay ku jiraan ee sidaa uga damqanayso run ahaantii wax aan loo dhibaatoonin lama dheersado dumarka soomaaliyeed dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo dhaqanka iyo diinta ay ku hayaan ayaa jirta gaar ahaan diinta islaamka haba ugu darnaato markii gabadhi hadasho sababka keliya ay wadaadka uu u hadlo oo ay dadka kaleeto aysan u hadlin ayaa waxa ay tahay wadaadka ayaa ah midka abusirka ah ee dumarka dhibaateynaya gabar hadday hadasho ma arkaysid siyaasi ka hadlaaya oo qaylo daaminaya oo dhahaya gabadhan maxay u hadashay laakiin waxaa la arkayaa wadaadka waa qofka keliya ama taakada ama isbaarada keliya ee hortaagan gabadha inay guul garto waayo sababtoo ah uma ogolo wadaadka gabadhu inay iskaba dhaaf wax kale inay xil qabato guddoomiye gobol noqoto wuxuu rabaa inuu yidhaahdo adiga cawraa tahay waa in lagu asturo cawradana waa wax la asturo dabcan xadiid nabiga laga wariyaa wuxuu ahaa almar'atu cawra gabadhu waa cawro sideeda bannaanba loomana ogolo gabadha soomaaliyeed waxbaa kugu furfuran kaahay iska xir waxaas wax midnimada leh haddii kale waa ku indha daraandarayaa sidaasaa iga fiican marka gabadha ninka la yidhaahdo wadaadada waxa ay dumarka ay dhibaatooyinkaas ay ugu geysanayaan oo aysan ugu ogolayn inay gabadhu ay cod leedahay uma ogola bini'aadanka heer wuxuu soo maray gabadha la dhihi jiray bini'aadan miya mase bini'aadantinimada maysan gaarin tadawur baa dhacay isbeddel baa dhacay waa la horumaray
waa wadamada reer galbeedka xilli waxaa soo martay gabadhu aysan xataa aysan codayn karin aysan madaxweyne aysan dooran jirin gabdhaha u halgamay oo dagaalamay ilaa ay hadda ay gabdhuhu reer galbeedka iyo raggu ay yihiin dad siman oo xuquuq dhan walba ay ka siman yihiin haya marka sidaasi la eg ba annagana waxaana looga baahan yahay in dhibaatooyinka na haysta gaar ahaan dumarkeenna haysta inaan iska dulqaadno oo wadaadadu ay ugu horeeyaan oo wadaadadu ayagu diin bay baa muxuu ahay daliishanayaan nabi maxamed baa wuxuu yidhi almar'atu tuqbalu fii suurati shaydaan gabadha soo jeedkeedu waa soo jeed shaydaan wa tudbiru fii suurati shaydaan sii jeedkeeduna waa sii jeed shaydaan macnaha gabdhu waa caynayaa nebi maxamed gabadhu markay soo jeedo shaydaan bay u eg tahay markay sii jeedana shaydaan bay u eg tahay buu yidhi imaamu nawowi wuxuu yidhi fahiya shabiihatun bishaydaan gabdhaha waxay u eg yihiin buu yidhi shaydaankay u eg yihiin marka waa cay iyo aflagaado meesha ugu dambaysa ah waxaas aan akhrinayo waxay ku qoran yihiin kutubta ugu saxiixsan waa xadiid ku yaalla saxiixa muslim ku yaallo wuxuu yidhi haddii adoo salaad tukanayo ey madow iyo dameer iyo naag ay kusoo hormarto salaadaada way buraysaa u fiirso waxaa isku meel la dhigay eyga madow iyo dameerka iyo gabadha waa xaqiraad la xaqirayo dumarka la xaqirayo waay waxaas kutubay ku qoran yihiin dadku hadday u baahan yihiin ayaga way ku noqon karaan ma ahan wax uu axmed iska keensanaya ama qof kaleeto cilaan iska keensanaya ma aha gabadha soomaaliyeed dhibaatooyin dhan walba ah ayaa haysta ani run ahaantii waana bogaadinayaa halganka aad ugu jirtaan horo halgan loo soo maray weeye oo gabdhaha adduunka ku nool waxaa cadaadin jiray diimaha way cadaadin jireen dhaqamada waxyaabahaas khuraafaadyaday bini'aadanka iska aaminsanaan jireen gabdhaha mar walba waa la cadaadin jiray laakiin maysan harsan jirin marka diinta islaamka khuraafaadiyada soo maray khuraafaadka adduunka soo maray unbay ka mid tahay khuraafaad aan gabar aan madaxa uga istaaginna maba jiraba intiisa badan marka mar walba waxaa guulaysanaya xaqaa guulaysanaya khuraafaadkana waa uu dhacaya anigoo kugu bogaadinayaa inaad kor isku soo qaadiin wadaadadan qaylqaylinayane waxay la mid yihiin wadaadadii kiniisadaha xukumi jiray ee reer galbeedka oo markay gabadha hadasho codka u diidi jiray dadka dili jiray ee kubi jiray kiniisadaha ka talin jiray unbay la mid yihiin sidii wadaadadii kiniisadaha ka talin jiray looga guulaystay ayaa looga guulaysanayaa wadaadada masaajidada ka taliya ee ka qaylqayliya in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mithlu marka ayagu hadday waxaan dilaynaa ay dhahaan ma ahan ayaga kuwo ay ku badbaadayaan ma ahan wadamada gabadha ay u dhaaranayaan oo ay baalka muxuu ahaa waddankaas maraykanka joogto waxay ka qaadi karaan ma laha waxba kama qaadi karaan waddan xore ay joogtaa qofkii naftiisa nacay ha soo aado gabadhaas ha soo aado ha soo eego keliya iska badaa wax kale qofkii asaga naftiisa nacay ha soo eego marka anigu ku bogaadinayaa waxaa ku leeyahay hore u dhaqaati hore u soco halgankugu soco oo biiqla ah warkiisa looma joojinayo waana halkaas aan kusoo gebagabeynaya waad mahadsan tahay aad baa umahadsantahay waxaa soo qabanayaa hodan aad baa umahadsantahay soo dhawaada حدي شرفه فضل أبا كل سلامة ولا المعن سيتها يسمى في عيد في عناية أبا كل سلامة ساعة كاميرا قوات لو ما أعرف سيتها أوكي واسفي عن إن وان في عناية أنا جو حن ربي إن محي هاي point here أنك هذلو إن أو كسرعتها قبله إن براروكسن أوكي هيا أو كلا قرنا ينعم ده وحو abuse كيهاي وحو victim كيهاي وحو يهاي قف كدبات هيسن
oo dumarka ah okay kolka anu mid baan odhan lahaa qofka victimka ah ee walaasheen guud oo Soomaaliyeed okay qofaan isnaqaana xataa ma noqonayso ma aha inay noqoto qof sharaf leh oo inagu aan jecel lahay ma aha inay noqoto qof inaga sideenoo kale u nool waxaasoo dhan muhiim ma aha okay waayo qof la soo cadaadiyay oo la soo dhibaateeyay inaguna haddaan ku nidhaahno sidaan inagu u soconay iyo waxaan sharafta moodaynay noqo dib kalaan inaguna usii geysanaynaa qofka soo maaha kolka qofta victimka ah suu u soo baxo waa in lagu ogolaadaa ma aha inuu saaxiib aad la noqotid inuu valuegaaga sheer gareeyo inuu waxaad adigu jeceshahay jeclaado ma aha adigu inaad aamusiisid oo qofkii ku tidhaahdid sidaydoo kale ma tihid waxaan aanu jeclahay ma jeceshid waad caytantaa ma aha victimku waa victim midda kale naagta victimka ah ma noqonayso naag perfect goor kasta ma noqonayso okay victimku waxay noqon kartaa qof iyadu munaafaqada qof iyadu dhib badan qof waxaasoo dhan bay noqon kartaa victimku haddii gabadhii kasta oo victima aan inagu kala dhigdhigno oo nidhaahno may iyadu waa sidan may waxaan anigu ma jecli may way caytantaa dee waxay noqonaysaa waxaasi ragguna waxaas waxay u isticmaalaan gabdhahoo dhan gabadha victimka ah waa la kala dhigdhigaa waa la tilmaamaa ceebteedii oo dhan baa lasoo faqaa waa bili-aadmi qof kasta ceebo badan baa inoo asturan gabigeennaba right intaan nool lahay kolka anigu waxaan dadka gabdhaha kula talin lahaa walaalayaal victimka siduu yahay ku qaata oo ku support gareeya you don't have to be inaad saaxiib la noqotid you don't have to inaad maaragtay jeclaatid you don't have to inaad diin wadaagtiin you don't have to walaaltinimo oo gabadh soomaalinimo ah ku taageer absolutely ayaan anigu odhan lahaa kolka taasaan u sheegayaa gabdhaha baraarugsan dumarka hala support garayo dumarka Soomaalida hala support garayo midda kale maxay ahayto rag Soomaaliyeed oo gabdhaha support garaya anu ma rumaysnay inay jiraan waayo hadday jiraan waxa laga arki lahaa raggu intaa way isqashaan dul bay isku dilaan xoolo isku dilaan waxay isku dilaan qabiil nin ku dilaya nin kale gabadh buu faraxumeeyay tiisaba ha noqotee way nagu yar tahay kolka inagu waa inaan isku istaagnaa inagu dumarkeena tii liidata tii xun tii fiican waa inaan kasoo horjeedsanaa in la dhibaateeyo waa inaan dhinac ka wada maraataa adduunkuna wuu isku raacsan yahay inagaa dambayna ha walaalo kolka intaasaan odhanaya hore ugu soco walaalo aad baan ugu farxay shoogaaga wallaahi aad baa u mahadsantahay sharaf iyo ciise ku haralo thank you macaan okay soo jaraya hadan dhanka ka jar kaamiradan isku aadin waayo iska jar daas okay gabdhihii markii rabay inay hadlaan waan soo qabanayaa qof raba inuu hadlo hadduu jiro waxaan kusoo gabagabeynayaa gabdhaha Soomaaliyeed runta walaalayaal anagu qabano cabi oo hadashay qofka dhibanaha qalad buu samayn karaa oo victimka oo dhibtu lasoo dhibaateeyay waayo wuxuu tirsanayaa dhibaato badan oo bulshada iyo dadka ugu jeclaa ay ka galeen haddaba markaa uma baahan in lagu digto mana mudno in loo dhaarto in la dhibaateeyo waxaa dhan ma mudno qofka marka waxaa weeye in aan isgarab istaagno so oo فريد كهوك سلام يا باي ان دمان adiga iyo dhageystayaasha barnaamijka la socda waa salaam ya ka باي aad baa u fiicanahay in barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u qiimo badan maanta aad baa kaaga mahadcelinaya waxaan rabaa inaan wax ku darsado baay waxaan horta jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay yihiin mid inay ogaadaan magaca dumar markaad aragto adiga kamid ah hooyadaaba kamid ah gabadhaada kamid ah eedada habaryarta ayeeyada marka magac guud haduu yahay ogow inaan leenahay hadda anaga dumarnahay anaga iska leh magaca dumar waxa iska leh dumar baa iska leh meel kasta ay joogaan marka gabadha Soomaaliyeed hadii ay dhaawac sheegato ama gabadha Soomaaliyeed dhibaato loo geysto hadii aanad u garaabi karin waxa la haboon aniga inaadan ku digan gabadha Soomaaliyeed
ee aad dareenkaaga u muujiso adigoo ka damqanaya dhibka gaaray booska gabadhaas inaad adiga isgelisid in aad ka soo qaadid haddii dhibkan ku gaari lahayd adiga ma jeclaan lahayd in lagugu digto ma jeclaan lahayd in maaragta adiga lagu farxo ama lagu boogihii lagugu sii damqiyo markii aad midaas isku xisaabisid waxaa kuu soo baxaysa in ay qalbigaaga ay ka timaado naxariis oo aysan marnaba kaa suurtagelin in aad qof dhiig baxaya in aad dhiig joojin u fidiso mooyaane aadan maaragtay aadan cidlo kaga tegin oo uu halkii uu ku nafbixi lahaa aadan kaga tegin marka gabdhaha Soomaaliyeed haddii gabadh Soomaaliyeed noo timaado oo dhaawac qabta waxa nala gudboon ee loo baahan yahay inaan u sameeyno waa dhiig joojin qof dhiig joojin u baahana ma ahan in halkii nafta kaga bixi lahayd looga tago marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan jeclahay in ay istusaan kaliya wadada ay ku badbaadin lahaayeen in ay go'aan ka qaadato laakiin aysan ku laalaaban waxa dhacay iyo ninkii wax u geystay muxuu ahaa ma iyada dambi geysatay no ma u baahnid inaad dariiq laga soo tagay aad ku laabatid iyo wixii dhacay gabadha dhiig joojinta u baahan waa inaad dhiigeeda joojisid waxba kaama gelin adiga waxyaabaha ay tabanayso waxba kaama gelin in aad hadal iyo ku sii darsato xaq uma lihid inaad boogaha sii damqisid waxaad xaq u leedahay inaad dhiig joojinta lagaaga baahan yahay ee dumarnimo inaad fidisid taas markaa dee gabdhaha Soomaaliyeed ku guulaysan waxaan badbaadin karnaa gabar walba oo Soomaaliyeed oo u baahan dhiig joojin gabar walba oo Soomaaliyeed oo hooyo ah oo cabanaysa oo la soo kufsaday oo ninkeedu dilay oo dariiq taagan oo hooy la'aan ah waxay ila tahay naguma qaadateen maalin iyo laba naguma qaadateen inaan gacmaheena oo is haysto aan gabadha Soomaaliyeed kaalmeeno iyadoo cidna u ooyin iyadoo cidna u baahan laakiin halkii aan dhiig joojinta kaga fidin lahayn gabadha Soomaaliyeed gabdho sheeganaya magac dumar ayaa sidii haadkii dariiqa ugu dhinacyada ugu kala jiitay taasna waa calool xumada ugu weyn gabadha Soomaaliyeed waxay kaga boogsan la'aday xanuunka haya haddii ay ka aamusi lahaayeen boogaha siima damqadeen laakiin anagii baa sidii haadkii midna gacan goosatay midna lug goosatay midna timihii ku dhagtay taasna waa calool xumada ugu weyn ee gabdhaha Soomaaliyeed boogaha ku sii damqinaya gabadha Soomaaliyeed ee haddii aad damiir leedahay haddii aadan dhiig joojinta ma aragta damiir aad ku bixiso aadan lahayn biliis afkaaga qabso oo ha ku sii kordhinin ma aragta codkaaga ha ku biirinin in aad dhiig baxaas meeshii uu qofka kugu dhiman lahaa aad ku gaarsiiso eray xun aad u qortay ama ma aragta hadal xun aad tiri waxaan ka codsanayaa damiirkiinu inuu shaqeeyo ka soo qaad cunugaagi oo dhiig baxaya sidaad u badbaadin lahayd ee adiga lagaa soo jeexay waa inaad u badbaadisaa shakhsi walba oo human ah gaar ahaan qof dumar ah oo Soomaaliyeed dhiig bax haday taagan tahay dhiig bax waxa lagu badbaadiyaa dhiig joojin immediately it's urgent care marka intaasan kaga baxaya dhanka dhaqanka iyo ma aragta wax ceebeentana mid ayaan ka leeyahay midda dhaqanka abaya waana mahadsantahay waqtiga ay siisay midda dhaqanka iyo ceebeenta ah waxaan leeyahay raggan Soomaaliyeed ee ma aragtay ee qaba xanaaqa qaba markay gabar hadasho meeqa kumanaan ah ayaa argagixisada dishaa maalin walba meeqa argagixisa ayaa disha caruurta Soomaaliyeed ardayda ah oo jaamacadaha ku disha oo maaragtay xafiisyada ku disha oo muqaayadaha ku dhintaan ma ka hadlaan inta soo istaagaan ma yiraahdaan sidee ku badbaadinaa bal bishan maalin kasta waxaan kaga hadlaynaa masaajidada sidii argagixisada wadanka loogu suulin lahaa sidii caruurta loo badbaadin lahaa sidii qaraxyada looga maaragtay nabadgeli lahaa mid is soo istaaga ee yiraahda xagee ku aragna anaga markii gabar Soomaaliyeed ay soo baxdo ee dibteeda sheegato waxa weeyaan waa loo soo baxaya waxa lagu xukumayaa dil baa lagu xukumayaa waa la ceebeynaya marka dhaqankaas meesha uu ka imaaday ragga Soomaalida ayagay ku laabanaysaa haday wadaad leeyihiin haday aqoonyahan leeyihiin haday dhaqtar leeyihiin anaga waxba naga ma
ayagaa usoo istaageen inay dumarka Soomaaliyeed yiraahdaan waa cawro dumarka Soomaaliyeed ma hadli kartaan waa hadli karnaa waa xor baan nahay aqoon baan leenahay garashaan leenahay waa ka sareynaa annaga in afkana la qabto waa ka sareynaa those days it's over gabdhaha afka la qaban jiray la ceebeen jiray la duugi jiray waa la soo dhaafay adeer waxa la imaaday isla xisaabtami lahaa xilliga gabar walba garshadeeda ee ku filnaan lahayd xilliga gabar walba ay og tahay qiimaha ee dunidan ku dul leedahay xilliga gabar walba ay og tahay ninka inaysan mudnayn inay cidna u adoonsanaato adoonsi xor baan leenahay fikrad baan leenahay waxaan leenahay garashaan leenahay cilmi nagu filan oo xumaanta iyo samaanta noo kala reebo ayaan leenahay marka ragga Soomaaliyeed haday wax bedelayaan ragga wax qarxinaya ee maalin walba caruurta iyo hooyooyinkii dhalaanka ee biilasha ka furanaya raggaas hal xisaabtamaane gabar garashadeeda u gooysay inay cilmi barato inay shaqaysato inay isku filnaato waqti idin ma hayso idin ku dhageysato marka waxa idin leeyahay waqtigaas wuu dhamaaday adinka gabar inay ceersataan ka weynaada maskaxdiina ka kortaan ilaha abaayraga gabdhaha ceersanaya ee maalin walba u soo saaraya sharciyada ay rabaan inay gabdhaha ku adoonsadaan Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel lagu kala haran lama joogo maanta gabar Soomaaliyeed ayaa tahay taasalkaaga waa naag taasalkaaga waa dumarnimo abay midaan ku darsanayaa gabdhaha baarlamaanka ku jira maanta baarlamaanka ku jira laakiin awood leh awoodooda Soomaaliyeed alla yaa abay macaan baarlamaanka ku jira ma aragtay abay gabdhaha baarlamaanka ku jira hadal waxa jira baarlamaanka la soo bandhigay laakiin gabar walba oo Soomaaliyeed oo baarlamaanka ku jirta way og tahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalaanka dacadiyada lagu hayo kufsi lagu hayo xafiisyada dawladda hoostooda ayaa caruurta lagu kufsadaa hooyooyinka lagu kufsadaa ma aragtay shaqooyinka lagu cunsuriyeeyaa ayadoo shaqadeeda la yiraahdo shaqadan hadaa qabatid laga yaabay aniga wax kala bedelasho wax la yiraahdo marka haweenka Soomaaliyeed ee qalinkooda geeyay meesha hadii aysan ayaga wax qabsan karin ee qalinkooda wax ku qabsan karin booska baneeya gabdha idin bedelo oo qalinkooda wax ku qabsada oo adduunka tusa ragga Soomaaliyeed iyo bahdilka ay ku hayaan ma aragtay meel kasta ayaga tusaaya abaayo baarlamaanka ka soo wareega ku dhihi lahaa hadaad wax qabanaynin sababta fursada adiga ah haysatid waxa helayso gabar aqoon leh oo aan nin ma aragtay u guruubeynaynin waxaan ku dhihi lahaa hadii aadan codkaaga ku biirin karin golaha shacabka aad wax ka bedeli karin kuraasta iska soo baneeya gabdha very intelligent ah aqoon leh educated ah wax bedeli karo ayaa idin bedelaya for sure intaas aan dhihi lahaa abay macaan igana ka abay macaan guuleyso love you gabdhaha Soomaaliyeed waxaan jeclahay group nin ha u noqonine adinka isgarabsada thank you abay macaan ما أنا أبغى شر هذا شريك هذا شريك ويشري ملاي هذا ما شركة تالا خوفنا أبغى هذا شركة تشر وكل جاية ورنا ورمحا فيسبوك تقلدم لقد دي إعلان ترى مغلس أنا هفت صاحب يعني سكر مي مغلسة هذا مغلسة شيخ دير إنه يا مراني ولا يعني سنة وكذا way anfici weyday marka xaqii ciqaabta ayaa xaqeeda loo kacaya hijra ayaa ilaahay ka muuqda taasina way anfici weyday marka xaqii ciqaabta ayaa xaqeeda loo kacaya hijra ayaa ilaahay u tilmaamay wahjuruhunna fil madaaji madjucu waa gogoshay ninkii horidiisu wada seexanayeen ayuunbu xaqa ula yara kacaya ma aha inuu guriga ka guuro ma aha inuu hadalka iska daayo oo qofka muslimka wala diiday walaalkiisa kale inuu hadalka kala tago taa uu iska daynaya ma samaynayo gurigana kama guurayo albeerkooyinkii xaafado kale iyo
laakiin gogoshu kala tagaya macnaheeda ma taqaana wasmadu u diidayaa weeye marka ilaa ninkii naagta haddii isku dhawaadaan waxa ka dhexaysa galmo marka waa sida laakiin wadaadku ma tegayo laakiin bustahaasun buu xaggaa u hira jiidanaya markuu saan leeyahay wuu qoslayaa wuxuu ku qoslayaa hadalkii af soomaali mu af soomaaliyeyn karo wadaadku laakiin anaga af soomaaliyeed gogosha kala haajir waa ha u galmoonin ha la samayn galmo ku cinqaab rag waxay moodaan hadday gabdhaha u galmoon waayaan galmo la samayn waayaan inay gabadhu xanaaqayso balaayo ku dhacayso ma garanaysaa ay guska nimanka u nooshahay markaasa maaho ciqaab adag bay ku tahay dumarka macnaha raashin ay diyaariyeen iyo tacab ay baxeen oo ka baxay oo lagu baylihiyo la cuni waayo waxa kaga sii daran bustihii iyo gogashii iyo arrinkii ay salaxday oo dhan oo isagana la rafido arrinkii ee salaxday iyo bustihii iyo gogashii oo ayada dhan ba la rafido yacni laabo ninka xagga uga sii jeedo so macnaha waa wuxuu gabadhii waxaa lagu cinqaabayaa in loo galmoon waayo waa sidaa galmo in lala sameyn waayo buu ninku ku cinqaabayaa oo sidaa wuxuu leeyahay wadaadku ilaahay baa weliba na yiri uu leeyahay taasi haddii ay socon weydana waxa mubaaxa oo sharcigeenu ogol yahay eedbin in la sameeyo wadribuhunna garaaca hadday taas u shaqeyn weyso waa in garaaca waa in quraan wadribuhunna garaaca marka waa la garaacaya gabadhii waa la garaacay waana la garaacay taan qaadno waana jibiyeen raggu wayna garaaceen gabdhaha maantay marka wadaadadii shalay waxay dhaheen ilaahay baa wuxuu yidhi waa in haweenka la garaacaa gogosha kaga carara haddii gogoshii diidaan kabacdina waa in la garaacaa waa aayad quraan dumarkii raggi markay garaaceen rag kalaa qaylinaya waxay leeyihiin inay hadlaan maahayn inay sheegtaan waa in la garaaco oo aan aamusnimiya haddaan haweenahay min la garaaco aamusnaa gabdho yaan isku keendirin walaalayaal yaan la isku keendirin annaga dhibteenna waa inaan ka hadalna meeshaan waxaa yaalla waa xadiis iyo aayado qur'aana marka in qur'aankii iyo aayadihii nagula dilo oo markaan dhahno war waxaa naga daaydo may gaalaa tihiin waa in laydin laayaa huf baa laydinka dhigaya waa laydin laynaya haa see ku dhacaysaa war annagaa wax aragnay bal wadaadkaas fiiriya waa kaasaa maanaa iri fiiriya ninkaas suu jiriya gabadha fiiriya wadribuhunna garaaca suu jiriya fiiriya dadkii wuxuu ku jirayaa dadki dhexdoodii meeshu ku garaacaya soomaaliyaan public baska ay saaran tahay baska dhexdiisa ku dilaya waa nin cad waa nin muslima gabadhi way xijaabanta waa gabar muslimada oo xijaaban oo dhar qabta wuxuu ku jirayaa meeshii public ah gabdhaha soomaaliyeed public ma lagu jira hargeysa nin dhan oo booliis ah baa xaaskiisa garaacay oo fiidiyaasheeda ilaa hadda ahaynaa public ku garaacay gabdhaha ma la garaacaa haa yurub ma lagu garaacaa haa waa lagu garaacaa way nagu garaaceen absolute raggu wayna dileen raggu okay nacim inaa hadashay rabta waa soo qabanaya absolute soo qabanaya نعيمة naakaho hadda waxaan soo qoray waxa wadaad Soomaaliya jooga hala soo xiro markaan waxaan leeyahay waxaan soo qoray hadda waxaan dhahay waxa Soomaaliya wadaad jooga hala xiro ka hawaa ku salaamay waxa aad aga xumahay cawada inay suurtagal noqon weysay dhowr jeer inay live ka gogo waa ka xumahay waxaan rajeynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay barnaamijka share gareeyaan dhamaantoodna ay soo dhawaadaan waxaan aan ka hadlay oqsoo qabanaya abay macaan oqsoo qabanaya shukriye abay oqsoo qabanaya okaadi haye
نعمرك بعض أنا كم عشرين أبلغ وين شكرا نحليم هيا بايود waxaan ka hadlayno wax macnaha oo iska cayaar ama sheeko bareley ma ahan waxaan ka hadlayno waxa waaye cirdigeennii oo meel looga dhacay waaye kaahoy haddii aan daba galo hadalkii hadda ugu dambeeyey aa dhehaysay runta markii laga hadlo 1500 oo sano ka hor bini'aadanku waxay soo mareen duruufo kala duwan qarniyaduna way isu soo beddelayeen waxyaabo badan oo bini'aadanku la soo noolaay horumar badanna wuu soo sameeyey micnaha 2000 oo sano ka hor sida loo dhaqmay maanta looma dhaqmi karo micnaha in gabdhaha gogasha looga tagaa in gabadha inta la soo qabtay cigaalka lagu garaaco ama la dilo bariyay waxay ahayd xal oo loo arkay inay tahay wax micnaha gabadha lagu xallin karo oo ma jirin maxkamad meesha ka jirto oo labada qof markay isqabtaan ama dad loogu talagalay oo cilmi bartay oo loogu talagalay qoysku markay isdagaalaan maxay ahayd oo xalliyo hadda waxaa ka jira Yurub wax la yiraahdo sexy therapy waxa waaye ninku markuu guriga joogo ama gabadhu markay dhahdo ninka inay u galmoodo ay diido eeba tiraado warniyo nafba kuma haya ka go'an nacimo waxba nacimo ka go okay hadda imaqlaysid qof tiraado shukri walaal kuma arko shukri gabadhi meeda shukri igu yeero shukri ina xaliimo hadda gacanta soo taagto soo qabanaya shukri nacimo ka go'an inta nacimo soo noqonayso oo soo qabanaya walaal maanta shukri ma arko marka nacimo marka gacanta soo taagatay hey Facebook عوض Facebook أبو هنجبا hey Facebook برايك يكون على فيسبوك والله guys Facebook we have to go Facebook we don't want to need again Facebook yeah هرت Facebook لو قد نوعك هلا وروسا قرنا على كيالي Facebook we don't need Facebook again more crazy Facebook أتي كمبيوتر أنت نابر برنامجين واحد هن مردو ناكتي ملح قوانا أركتين قفك أركتين تورا فيسبوك أنا غير نوهبا ما كتيرت فيسبوك ليش إنجليزي شغال فيسبوك وهذا we don't need again more تويتر كأوجورنا والله فيسبوك مربنا الله يلعنك فيسبوك كاهاي فيري وحي بحيد والله بالله عيلة نيكي وحاي هاي نيكي جامبيان كان عملنا بوت سوقات فيسبوك انت هذا بقاب سوق اشتان فيسبوك why you block me فيري بحالك يشاق محيه توي بحالك محاهي وحان شاقره محيه ها وحان كو سعود ماشا laga keenay 1000 sano ka hor in gabdhaha lagu mees ka hooy waxaan kuu soo diraa horta dumarka in la gumeysto maxay ahayd toy oo sariirta looga kaco markay dhiig leedahay maxay ahayd toy in dumarku ay yihiin wax micnaha la leeyahay horta waxa laga keenay yahuuda laga keenay kutaabadan la yiraahdo ibraahimiyadu waxay ka siman yihiin ama tawraad iyo injiil iyo furqaan waxay ka siman yihiin in dumarka la dhibaateeyo waa waadix waay micnaha ma ahan bini aadanka waxaana u jeedin bini aadana sameeyay anaga taariikhda kuma hayno kutaab qoran oo cirka ka soo dhacay kuma hayno laakiin waxaan haynaa nabiyo yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala anaga na soo diray oo na sameeyay hal naag kuma jirto saa aragnay hal naag oo nabiy ma jirto anaga waxaan ka hadlayno anaga waxaan xaq u leenahay qarnigan anaga aan noolnahay inaan fikirkeena ka hadalno dadka kaliya ee adduunka aan laga helin aniga waxaan aad ugu faraxsanahay inuu Facebook ka jiro meel lagu dood cilmiyeed ay jirto fikirkana la isku dhaafsado hadda ma jirto Soomaaliya waa arkaysaa meel jaad lagu cunaayo meel aroos lagu dhigaayo meel fanaan imaanayo lagu heesaayo meel maxay ahayd oday lagu caano lagu shubaayo dadku meelaha ay isku imaadaan waa aragtay ka hoy laakiin ma jirto meel gooni ah oo fikirka lagu falanqeeyo ma jirto professor soo fadhiisanayaan ardadii jaamacadda ay imaanayaan maxaa waa dad aqli badan ee fadhiyaan oo qof walba fikirkiisa la dhageysanayo Soomaaliya kama jirto meel fikirka loogu doodo waa meesha kaliya adduunka aan fikirka looga doodi karin waa Soomaaliya waay wax walba waa naqaanaa wax walba anaga ilaaha noo nimceeyay dadka adduunka ugu fiicanaanahay inaysan dheeraanahay inay libaxsan ka taabtaanahay wax dhaho waa Soomaali waay guys waana waxa kaliya adduunka aan aga harna waa taa waay waxaan aad ugu faraxsanahay cawada anoo gurigayga fadhiyo inaan fikirkayga dhiiban karo
kaaho Norway joogto ina aniga aan codkayga bixin kara dhigi karo okay aniga aragtideedu waa nuucan marka kaaho waxaan qabaa kitaabadan la dhaho ibraahimiyadu waxay u taagan yihiin runta hadii laga hadlo hadaa rabtiin soo akhriya kitaabka yuhuuda iyo kitaab kristaanka soo akhriya Old Testament fiiriyo quraanka waxba kama duwano waa copy from copy way taasna waxa ku cadeynayso kitaabadaas oo dhan waxay ka imaadeen ilaahay ka imaadeen hal ilaahay leeyahay waana waxa waaye ilaahay subhanahu wa ta'ala way aan naqaan waa magacay badan yahay ilaahay macnaha waxaan rabaa inaan ka hadlo marka xaaliyan dadkii markaa joogay ee noolaa waxay fikireen in xalku sidaa yahay in gabadha gogasho looga tago in gabadha markii ay carooto la waxeeyo in gabadha naagta adoonta u ah ee dariska u ah in loo galmoon karo inay wax normal ah u aragto ninkaaga markuu soo weeraro inuu naagta guriga ku joogto ku shaqeynayso masaakiinta oo Afrika laga soo afduubto oo isku xilliga hore isku kori karo macnaha waxa soo dhan bini aadanku way ka soo gudbeen hadda waxa ma jiraan waa laga soo gudbay hadda waa ceeb inuu ninkaaga gabadha ku shaqeyso oo u taga dhimasha ka xigta ma jirto gabar ogolaanayso dhayso adoonteedu ninkay laakiin diimuhu way fasaxayaan runta hadii laga hadlo dadkeenu ma aha dad wax akhriyo ma aha dad inay wax bedelaan raba ma aha dad inay wax cusub maqlaan raba ma ahan runta markii laga hadlo dad waxaan la hadlaynaa wada qafilan aan la hadlaynaa marka ka hooy maanta in anaga ku doodin inaan dhaxno war wadaadaasaan yiri wadaadku wuxuu lacag ku qaataa inuu kitaabkaas oo ninka carabiga qoray oo ku soo akhriyo ku qaataa runta markii laga hadlo wadaadada Soomaaliyeed waa wada businessman way runta markii laga hadlo ma jiro qof 24 saac qamiis cad sito ee qurxoon ee naashan ee garka soo xiirtay ee cilaan soo marsaday ee qurux badan ee masaajid fadhiya ee baahan ma jiro diinta islaamka Soomaalidu waxay ugu shaqaysataa waa business way hadaa run rabtiin hadda fiir message-kii ugu dambeeyay ee tawfiiq way isku haysteen lacaga lagu helaa lacaga lagu qaataa ninka wadaadka ah wuxuu wax ku qaataa inuu ummadda Soomaaliyeed wax u sheego ilaahay dartiis uma shaqeeyo ka runta markii laga hadlo marka meeshan waa business waxay business ku qaataan dumarka inay jiniyan ka saareenaa beena dhahan waxay business ku qaataan inay ciyaalan quraan bareena dhahan waxay business ku qaataan laakiin jid ma dhisaan isbitaal ma dhisaan gabar la gudaayo kama celiyaan gabdhaha waxay rabaan inay dhahan waxay dhiirigeliyaan in gabdhaha la kufsaday dhiirigeliyaan xaqiiqda markii laga hadlo marka waxa waaye anaga waxaan u baahanahay wax la yiraahdo cadaalad anaga waxaan u baahanahay sharci ka baxsan waa marka la idinku celinaya waxaan u baahanahay sharci ka baxsan sharciga kitaabada ee diimaha ka baxsan u baahanahay waxaan u baahanahay inaan helno dawlad annaga aan heshiis ku nahay waxaan u baahanahay dastuur Soomaaliya loo qoro oo annaga naga celiyo kan wadaadka ah kan masaakiinka ah jidka taagan kan wareeray gabadha masaakiinta ay gacmaha laga goynayo gabadha la kufsanayo xeer ay ku heshiiyeen u baahanahay anaga inaan sameysano oo nalaga celiyo mesela ninkii gabadh kufsadaa 10 sano waa in la xiro waay ninkii qof maxay ahaatay cunug yar isku daya xataa hadii ninku dhaho warnaagi ayaamaha waa qurxoonaatay si fiican lagu soo waso hadoo ninku dhaho waa inuu ugu yaraan 2 sano hadalkaas bas oo ku yiri dastuurku waa inuu dhigay 2 sano ninkaas xarig in la xiro waa hadoo ku yiraahdo ragga Soomaalidu way isdhahan هيا يا ما هبلاي حاكو قد يا ما أضيق ما كام قالوا كله معناه وحاول ملقوا وياعين واي وسكسي هراسمنتي على الجسوبي قفكو لنا أول مركو أنا قال لنا هاي هدانا هاي شرع إن بدبادية وبهنا هدانا هاي دمر كصوماليات حق وحقول لنا إن دورنا هذا الصوماليو وحي أرديسا إن له هلا وحلا يرادو وحلا هل عضي هل قف ودوديسا صومالي كاهوي وحنرجينا إن عد كيجلا مغلو markay u doodayaan maxaalna laga rabaa marka gabdhaha Soomaaliyeed inaan nahay hadii maanta Soomaali maanta waa ognahay 1.5 wax la dhahay ku shaqeeyaan oo odayaal tuugo oo meel ku aruuray dadkii dhacay laakiin bari hadii la dhaho hal qof iyo hal cod gabdhaha Soomaaliyeed waxay yeelanayaan cod ay yeelanayaan marka adiga yaa u codeynaysa siyaasiyiin u codeynaysa madaxweynaha soo dooranaysa waa su'aal adiga ku taal ina isweydiiso ma waxa soo dooranay odayga eyga ee ku dhahay wadaadaan ahay oo hadoo kitaabka ku akhrinay hadoo raba asagaba aan aaminsanayn ee style kala ku nool ee ilmihiis Yurub joogan ee asaga Yurub ku raaxaysanay ee meel walba asaga kaaga horeeyo ee bulshada asaga ixtiraamayso laakiin adiga isbitaal ku dhashay aadan haysan jid aan marta aadan haysanin maxaan ku dhahay ninka jidka kugu caynaya aadan sharci ka celiya aadan haysan marka codkaaga yaa u codeynaysa waxa u codeynaysa adiga markaas waxa laga baahay inaad fikirtid inuu codkaaga horta qiimo leeyahay oo la gaaray xilligii adiga guuleysan lahayd waa inay tahay waxaan u codeynaynaa siyaasiga Soomaaliyeed ee u istaago xuquuqda dumarka
ee u istaagay inuu gabdhaha nasti maxaa la shantii boqol markay yihiin waa inay 250 dumar yihiin baarlamaanka waay ma aha in 30 dumar meesha noola soo fadhiisiyo habra aan ba aqoon waxay ka sheekeynayaan marka waxaa waay runta markii laga hadlo ee kaahoy shaqada aan hayno anaga mujtamaca Soomaaliyeed aan hayno shaqo yar ma ahan waxa kaliya ee aan u baahanahay waxay tahay in bulshadeena hoosta laga soo dhiso aaska laga soo dhiso marka maalin walba in anaga victims ka dhigno oo calaacalno war ani berri niciimo kula hadlay codaan yeelanaya adiga kuma codeynay ee dhalay ee qabiilka aaminsan kutaabada aaminsan aniga kuma codeynay waxaan u codeynayaa ninka Soomaaliya hormarinaya ninka aan xaquuqdooda u dooday ka hadi waa ka go'aan malayna ani waa la maqlaa war ani ma la maqlaa نعيمة مين مغشى؟ ani waa ku maqlaa haa kaaho نعيمة waa ku maqlaa ka أنا ويجو قايا هر دتك عدك نعيم عاد مو مغشان أنا ويجو قايا أنا ويجو قايا عاد ويجو قايا أنا وأقول لك ما عمري دتك يكون مغريان نعيمة عاد مو مغلسن هذا الكذا حديو يو ها marka abay macaan anaga bulshada waxaan u heynaa shaqo badan aan u heynaa special adiga maxay ahayd dadkeenu waa inay ogolaadaan in la kala duwan yahay aniga hadda ninkan soo qoraya beena sheegaysa waa fikirkiisa ka hadlay waa inaan ogolaan karnaa qofka naga soo horjeedo waa inaan ogolaan karnaa qofka naga ra'yiga duwan waa inaan ogolaan karnaa qofka naga diinta duwan waa inaan anaga dad kala duwan Soomaaliya isku wada ka karnaa naagii Soomaaliya oo dhan gorgorada loo wada geliyo nimankii Soomaaliya oo dhan macawuusa loo wada geliyo war waxaan nahay mujtamac dhan oo malaayiin qof ahaan nahay uma baahnin inaan isku wada ekaano inaan hal uniform wada xirano inaan hal aqliyad leenahay uma baahnin anaga waxa waa inaan dumarka Soomaaliyeed maalin walba waxa lagu sheegaa aqliyaad naaqisaad bala wax la dhaho ma jiraan marka dumarka Soomaaliyeed waxa kula talinaya inay ayaga horta wax bartaan ee fahmaan meesha laga jiro iyo meesha laga weeraro ugu yaraan hadii aadan waxba baranin wax akhri isku day inaad luqad wax ku akhrisid heshid afka Soomaaliga wax ku akhri af Ingiriiska wax ku akhri wax raadi bal fikradaha kala duwan adduunka meelaha lagu doodo bal aad ee soo fiiri marka ka abay macaan waxa kaaga faad celinaya waqtigaaga qaaliga maanta inaa live ku jirtay maxay dhowr jeer oo ka badan go'ay soo hadashay waqtigaaga gelisay maanta waqtiga ilmahaaga u baahnaayeen waqtiga naftaada u baahnayd waqtiga adiga maxay ahayd wax fiican samaysan lahayd xilli adigoo shaqo ku jiro mujtamaca Soomaaliyeed shaqada aad u haysid ee balaaran ee ah inay bulshadu is ogolaato in dulmiga dumarka laga daayo wanaaga iyo sharafta iyo gobonimada ay haysid ogow ka hoy anaga ku og madaxaana noo saaran tahay dumarka Soomaaliyeed ee ragga dumarka xunaa jiro ka hoy dumar waxa jira ragga ka xun waxaan rabaa inaan inta uga faa'iideysto dumarka xun waa inaan iska ilaalino qof bini aadan qof kale bini aadan dhibaatadiisa ku raaxaysanayo anaga naga ma tirsano gabdhaha isku damqanayo maanta gabaraa la dilayaa maanta gabaraa la furayaa aan waxba dhihi karin marka waxaan ku leeyahay hore u soco magacaagu ha jiro hana u joojin dadka nakatiifka ahi koombada mii maqashaa kaa codkaa ka go'go'aya u malaynaya aada u mahadsantihiin asxaabay intii hee qalbigu buki lahay ma aragtay timaha ha bukaan marka aada u mahadsantihiin habeen wanaagsan نعيمة أنا وحكم نعيمة بلادو شهر هذا مقليس وأنا كم مقلي نعيمة ملا ورتاني عالمي مغشان قف بلوغي أو إسك عادة أو مسكينها لكن قف كان مودي سوق قرية قلاد وينك هذا بلوغي قف كلام وفيرنا يا بلوغي كذي قف أحكي بالله يا بلوغي لكن وين بلوغ قاعدة هذا اوكي انا waa ka baxaya saaxiibayaal haduu hal gabar oo la dhaho haday ku jirtaa soo qabanaya abaar baa ku jiray marka way uu go'aya ma garateen ka yara la ahaado gabadha soo fiirinaya حمزة كما أرك ولا ما عندك كما أرك حمزة يري أنت اسمع ونافن إسكا هاي وأنا كنا فستان عن بالآدم بكسر أنواع هاي مرك ولا مسلم أنا عوجري
guri kira waa deganahay ilmihii ismay rabaan badar waxay cunaan rabaan waxay wax ma suubsan karno marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa inay gargaar degdeg ah siiyaan gacmaha marka hore waa lahayd gacmaha marka hore waa lahayd xaasinimo leeyahay gooy yaa ka gooy waxaa iga goysay oo wada noole marka maxay ku dhacday arintaas marka arintan waxay ku dhacday waa waxaan aqay labada gacmood laga jaray marka ma jirin miya dad qof bani aadan ah oo gacan laga jaray nin dhan baa intuu gabadhii ku xanaaqa xaaskiisa buu labada gacmood buu ka jaray labadii gacmood buu ka jaray wuu naafeeyey maaragtay wadaad ka hadlaya maaragtay dowlad ka hadlaysa maaragtay shaq ka hadlaya marka gabar baa tiri waxay rabaan intii ku dilaan oo ku naafeeyaan oo ku kufsadaan oo ku xumeeyaan inaan la hadlin taama dhacaysa dee taama dhacaysa fiir meeshaan tanay ama damqanay wax dad oo idinka agdhawaa ma jirno meesha wax dad oo agdhawaa ma jirin meel baadiya ayaa marka kadib maxaad ka warheshay xilli aad soo naaxday mar damba ku jirto aniga xilliga aan soo naaxay isbitaalka kaysanaya si wanaagsan isbitaalka kaysanaya laakiin aniga oo kaysanaya dhiiga lagu shushuway kastoo waa iska roonaaday nolosha aqdada marka go irtana waa dhiman tahay laakiin ninkii inaafay isaan iyo falay saameyn badan aad dareemaysaa sababtoo ah qof maanta ciyaalkeeda inay qabsato hammi u leh oo ay u xamaashato ayaa ahayd صح لكن محاوى دباتان هيسد عيال كان وديسد وقتيد ففدي waxa hadda loo ku tashayna ma jiraan oo odana caawiyo alxamdulillah rabbil caalamiin maama dad badan ku daawanaya oo muxsiniina gabarka saasay u ooyeysaa gabarka saasay u dhibaataysanta nin baa meel ku dhibaateeyay ونمية وها عجيبة دمر ولا ريالو maxaa isku xaasidaysaa maxaa walaal noo xaasidaysaa kuwa dhiban kuwa dhibaatada ku dhacday kuwa fiican may caawiyaan maxaa raggii xumeeyey oo gabdhaha dilay maxaa walaalayaal usoo raacaysaan miyaanan walaalihiin ahayn miyaanan gabdho dhiban ahayn maxaa u fiirsanaysaan gabdhaha dhiban maxaa fiirsanaysaan waxaan inka galabsanay ma inaad dhibana nahay baan maaragtay inka galabsanay baan ugu farxaysaan وحنون وحنون بل هو يضع مسكينة فيريا بل هو يضع قعمية ويسي فيري بل هو يضع نكر انتو علمي كده العلو وقتقون الحنانين بل ايقا ما يوضعتو لها مدين تمقبتو هو إن قعمها لغا قرو ما يوضعتو لها إلهي رأليك معها إن سيدا الله يالو والإله نكر قرب كسيني يمحو الله لياليه الحمد لله قعدت هذا سوتاعت حمد عبدي ديرية وكسوق وانا هذاك قعدت سوتاعت والله الشيخ وراليال مين دمقنين مين الهين ضد مقدم لي المياه فلاس ولا الكماركو قف عروس وقت مركل مسوق وانا يقرا هذا وين دار وان كبحيا لكن ما وحا ما دبكه هويوينكو كدعين درتود باساس وليدين waxaas tawaalahaas qadro baa gabar soo qabatay marka si xilada walaal miin aan daqranahay waa ii caayaysaa ereygaas bi ku tiri walaal miin aan dhibaataysanahay oo lii kufsaday baa ii caayaysaa waxay leedahay walaal ma in aan dhaawac ahay baa ii caayaysaa markaase waxay leedahay ibari aan si kaa daaya ibari war markaa sidaa noqotaan maxay tahay islaamnimada dadka ugu yeeraysaan gabdhii Soomaaliyeedo maxay tahay diintii ilaaha marka dadka ugu yeeraysaan walaalayaal ma hooyooyin dhibaataysan baa nahay ma dhibaatada u baartaan inaad nagu digataan inaad nagu mashxaradaan xanuunka iyo dhibaatadana haysata haweenka ma gabar ooyeysa oo ku tiri deyn baa liigu leeyahay waan dhibaataysanaha ilmahaygii baa waxaan ku dhalay doon nin baa gacmo iga jaray lacag baa ilmahay la iga qaatay oo aan ku soo lacag baa ilmaha markaa liisiinay lacag baa la iga qaaday deyn baa liigu ma inaa gabdhow aa ku digataanba walaalayaal ma sidaas baa muslimnimo ah ma sidaas baa soomaalinimo ah ma sidaas baa gobonnimo ah ma sidaas baa dumarnimo ah
wallahi walaalayaal benini ma sheegay gabdho badan baa diinta islaamka ka tegi doona gabdho badan baa inka fogaan doona gabdho badan baa inka carari doona gabdho badan baa dad caddaana waxay raadsan doonaan inay u noqdaan ehel inay ka dhigtaan maxaa la dhahaa gabbood war walaalayaal hooyooyinkii aan la caayin gabdhaha yaan la caayin annagoo dhaawaca oo raggii dadka noogu xigayna dhaawaceen gabdhow hana caayinina nimankana dhaawacay xaqana la raadiya siday gabdhaha kale xaq u helaan haddaa maanta gabdhaha dulmiga ku eegtaan adigana waa lagu dulminaya qofkii u gargaara inuu qof la dulmiyo oo la dhibaateeyo asagana waa la dulmin doonaa asagana waa ma garanaysaa waa dhibaata ku dhacaysa walaalayaal sidaa sameynina gabdho waa ina barayaa walaalayaal walaalihiin baana xilligaan dhibaataysnayn dhibtaan u eeginina xilliga ilmaheena dhibaata ku dhacday aan cidlo mudanay ay raggi dadka noogu xigina dileen hanoo noqonin cadowgeena hanoo soo raacinina waxba inkamaana galabsane gabdhaha u naxa war noo naxa oo gabdhaha u naxa oon isku naxno xanuun wey walaalayaal waxaa samaynaysaan subayn wey aad bay xanuun u tahay see diintaa difaacaysa maxay tahay markaa dadka sidaa u dhibaataynaysaan maxaa looga sii jeesanaya gabdhaha ooya masaakiinta hooyooyinka fakrigu baabiinayo hooyooyinka colaada hayso walaalayaal jaanis hadday inii siiso yurub inaa baasbooro aa heshaan iyo america shaqooyin aa heshaan cayr inaa qaadataan internetka in lainka bixiyo waxaa jira hooyo aan intaa haysan hooyo la dilay hooyo maaragtay gacmihii laga jaray hooyo la kufsaday oo dhakhtar aan haysan internet aan haysan mobil aan haysan waxa ilmaha siisa aan haysan sidee baa ku dhacaysaa adinkoo gabdha ah oo intaas inta halkaa soo fariista inaa intaa caydaan markaa sidee bay gabdhihu aaminaya inay diinta islaamku diin naxariis la tahay sidee bay gabdhihu u dhahayaan inay dadka soomaaliyeed dad fiican yihiin sidee bay gabdhihu aaminayaan in maxaa la dhahaa raggooda u hiiliyeen sidee arrintaa ku dhacaysaa ninka wadaadka oo annagana caayaya ma weydiisaan walaal ma dhahdaan maxaa gabdhaha u qabatay mataa weydiisaan maxaa dhib runtii walaalayaal sidaan haddaa gabdhaha loo dhaamin gabdhayaal badan baa inka fogaan doona gabdhayaal badan baa inka carari doona waa inku celinaya gabdhayaal badan baa inka qixi doona hooyooyin baa qalbigu gubanaya hooyooyin baa carruurtooda xabs ku jiraan hooyooyin baa carruurtooda daroogada ay cunaan hooyooyin baa waxba haysan anigu ma dooni inaan halkan inaan ku ooyo waayo intiina badan waxaa tihiin nacab intiina badan waxaa tihiin xaasiliin intiina badan waxaa ku farxaysaan dadka dulman oo dhibaatada ku dhacday dadka hiilka u baahan oo hiilka waaye dadka ooyaya oo xanuunka qalbiyadooda xanuunka buuxiyeen oo dhibaato walba ku dhacday marka ma mudidin inaan idinku hor ooyo laakiin way dhacaysaa garanaysaa maalin baa imaan doonta gabdhaha inay cadaalad ay helaan laakiin war gabdhaha ha caayinin walaalayaal gabdhaha garab siiya gabdhaha walaalayaal u naxa maxaa miyaanan gabdho soomaaliyeed ahayn miyaanan qabiilo soomaaliyeed ka dhalan miyaanan ahayn dadkii shalay ilaahay baryayay dadkii shalay ilaahay la aaminsanaa ma nihin xanuun way walaalayaal waxaa samaynaysaa I'm so sorry waxaa samaynaysaa wax fiican maaha waa wax aad u xun maalin walba gabdhaha halkaa inii soo ooya sawirradoodaa jarjartaan war maxaa dharkaan qabna maxaa u fiirinaysaa nii madaxeedna maxaa u fiirin laadihin korkeena dhibaataysan maxaa u fiirin laadihin dhiigga naga hooraya maxaa u fiirin laadihin calooshaan ka ooyayna maxaa u arki laadihin maxaa waxaas oo dhan u arki laadihin waay sababtu maxay tahay maxaa u fiirin laadihin carruurtii hooyooyinkii intay dhaleen xabsiyada iyagoo ku jira iftada laga fuulayo oo nimanka caddaanka iyo madowga ay iftada ka fuulayaan oo beritoola noqonaya maxaa la dhahaa noqonaya badufi maxaa la dhahaa LGBT-ga oo aqliis leedihiin
isma dhahaysaan muxuu khaniisu noqda maxaa ku dhacay laakiin waxaa awoodaa inaa caydaan isma dhahaysaan sidee wax u gaareen waxa waaridkiis caydaan hooyadiis ceyrsataan war waay waxaana u dhihi lahayd maxaa u dhacayaa sababta maxaa damiirkiin ka qaaday maxaa idin waan xadin wallaahi waan xadin maxadin wey waxaasu kalaa wax fiican maa waxaa samaynaysaan ma hooyo miskiin oo intaasu sano ku haysta waa la dilay ba waxaa la leeyahay maanta niman wadaada intii fudwoodan hala dilo oo ayadaaba dilneed marka hore ayadaaba dilneed qof la kufsaday oo ilmaheedi xabsi ka galeen oo ooyeysa oo haddii dadka caydo hadday caytanto weli oo qof dhibaataysane maxay caydada xanuun u tahay sidee gabdhaha dhibaataysan caydadu u noqotaa maxaa la dhahaa ay u noqotaa wax caade wax maxaa la dhahaa xanuun ah waxa ceeb wey walaalayaal waxa ceeb wey wax fiican maaha waxa ceeb wey runtii waxaa imaanaysa maalin waxaa imaanaysa gabdhaha soomaaliyeed dad u hiiliya ay helaan waxaa imaanaysa gabdhaha soomaaliyeed in niman caddaana guursadaan niman madooba ay guursadaan niman kale ay u galaan ay hiil ka dhigtaan dadka kale ay hoos galaan ilmahoodu ay luuqadooda ay iloobaan waayo dadka noogu xiga baa na cayrinayaba waa naxdin wallaahi waa xanuun waa 30 sano bay haweenka soomaaliyeed ooyayaan waxaana dhegaysanaya ma laha naloo sameeyey niman waxaa naloo sameeyey iyo gabdha nacaaya oo sawirkeena jarjara alla naxdin badana markaasa waxaa la ilaahay may ka baqdo oo ilaahay see looga baqayaa haddaa ilaahay wax ku dulmisaan adinku see ilaahay dadku uga baqayaan haddii adinku ay ilaahay ka baqaysaan dadka ma iska daysaan haddaa ilaahay ka baqaysaan oo waxaan dhabayni ka yihiin ma iska daysaan dadkaa dhibaataynaysaan alla soomaaliye waaba haddaan luuqadaha kale ku hadli lahaa dad badan inay ii imaan lahayn oo ooye oo damiir leh bilaadan waan hubaa hooyooyinka bannaanka taagan oo wax walba waay haddii luuqado kale ku hadlaan oo dhahan waxasaa inoo gala waa raggeennii waxasaa inoo gala waa wadaadadeennii waan hubaa inay garab heli lahaayeen laakiin waxaan ooynaynaa oo weli hor fadhinaa dadkina dulmiyey dadkiina dhaawacay dadkii si walba noo baabiyey maa halkan soo hor fadhinaa wallaahi bilaahi waa naxdin wallahi aad baa uga xumaa inaa markaa la hadlaba aniga waxaa waye qalbigaygaa jilicsan waayo si daacad baa u hadlaa wallahi uma malaynayo qof iga bilaadansi inuu jiro ma malaynayo adduunka inuu saaran yahay laakiin inaa saa noo dulmisaa ma aha in gabadhii dhaqaaqdaba la kufsado ma aha gabadhii la dhaqaaqdo bal 3 sane hooyo ooyeysa 3 sano 3 sane waxay leedahay walaalayaal waa lii kufsada saas baa lii gala markaasaa layidhi guriga ka cayriya meeshii deganta ka cayriya ordi ka cayriya intaa ka cayrisaan soo niga fogeeya maanta bay soomaaliya dhan waxaa leedahay hala dilo maxaa la dilayaa miskiinada yar ayadaaba korka xanuunaya maxaa la dilayaa yacni rag baa waxay arki lahay inay qosli laadahay dadkaasaa wuxuu ku leeyahy ilaahay baan caawinaa diin baa haysana alla been badana soomaali war diinta haysataan maxay tahay hooyo miskiinada markaa rabtaan inaa waxay cuni lahayd youtube baa waxay ka soo galaan markaasi waxay dheheen ha laga xiro yacni wuxuu raadinayaa way og yihiin maraykanka hadday dilaan qofkii dilaa dadka ku baaqaya way og yihiin hadday maamulyuun dilaan ama gabar kale ay dilaan inay xabsiye gelayaan marka waxay isleeyihiin see nolosha uga xirtaan nolosha waxaa looga xiri karaa in youtubeka laga xiro youtubekada ka xira
على حاسد سنة على حاسد سنة على حاسد سنة على حاسد سنة ولا على دتك حاسد سنة على دتك حاسد سنة إنسان صان إنه الدنيا سارين ما أوجين دتك Soomaaliyeed haddii macaa nuclear lagu rido sidii maxaa la dhahaa Mareykanku bariga sameeyay wallahi way mudan yihiin si haweenka u galeen raggu iyo gabdhuhu si isku galayaan si xun bay isku galayaan waa naxdin bal waxay yidhi waxaan dhegaysanaynaa gabar kala baryaysa oo dhahaysa walaal maxay caayaysaa haddaa codkeeda maqli karno okay kan ma ahay videoga rabi kan maaha والله حد كان قبل لا يرادو ayaa igu tiri kan maana rabin waxaan rabay videoga ay leedahay walaal maxay caayaysaa runtii xamdi markay ku dhahdo walaal maxaad ii caayaysaa ma dhibkaa igu caayaysaa ma xanuunkaa igu caayaysaa ma daqarkaa igu caayaysaa waxay inay dhahdo abaay marduma kuma caayo gobonimadu waa sidaa inay ku dhahdo qadro marduma ku caayi mayo saasaa gobonimo ahayd laakiin ma ay samayn am sorry waa ka xumay laakiin waxaan rajaynaya inay isgaran doonto gabar dambe caayi doono runtii walaalayaal war gabdhaha caayinina gabdhaha walaalayaal ha caayinina maamada loo hanjabayana anu waa ka baxayaa maamada loo hanjabayo qof walba oo qoraalkiisa qoray iyo qof walba oo video uga hanjabay hadday ciddi soo gaarto maxkamad baa la fulena mana badbaadi doono halka qof oo dhibaateeya hal qof iska daa waayo Soomaali dhan baa ku daba degan marka ma dhacayso dhibaato haraagsanina Hello, Kaho. Baba ku salaame. aad baa ku soo dhaweynaa seetaa baay Kahami maqle internetka iga xuna u maleena aniga. Ha baay miga go'aya. anigu go'aa ha hadda okay baa tahay laakiin Maanta kulligan internetka naga xunee waxa waaye because runta markii laga hadlaayo okay baa tahay baay runta markii laga hadlay dad baa raba inay aamusiyaan yes dad baa raba inay aamusiyaan oo nagu wada dacwad laakiin ma aamusi doono ma aamuseena Kaho yes problem waa qabnaa baayo waxyaalo qaan mu iga go'aya Kaho mi maqle ha baay okay baa tahay yes hadda okay baa tahay sorry baayo walaalay waxa waaye runta kama hadalno Kaho dhibka jira waxa waaye runta kama hadalno raggeenana waxayna tuseen in diin intana dhunto annaga niyadana la ka sii jabiyo sorry maanta Kahami maqle abaayo laakiin annaga dumar Soomaali hadaan nahay annaga sii gabnay abaayo annaga sii gabnay kuwa isku dulqaata oo mideeda kale markay mid down tahay niyada u dhisi karta ama wax fiican isku sheegi kara rabbi hanaga dhigo abaayo aniga ma fahanti maxaa waaye wadaadadan oo dadku unbay sii bursanayaan kaba sii daranba ma fahanti laakiin dad qalatooyinkan sheekhyada wada cambuurada qabo Kenya waa Christian country Kaho mi fahanti waxa eel iga haayo wadaadadan intay Kenya joogan ay businessyada ku wada leeyihiin ay intay isku soo guduudiyaan annaga huruudiyo annaga xataa time uma haynaan isku qorqorxino Kaho mi fahanti
nimankan wadaadada ah iyaga isqurqurxiyo isdhalaaliyo lacagta dumarkaysa u gaareen ay ku gaareen marka dumar Soomaali oo idinka daciif ah idinka halkaana dhigteen idinka carureen waxba ha ooynina waxa way intaanan hadlaysa ma aha kaaho si haday sheegtay dumara ka dambeeya nimankan xunka because kuwa fandgareeyaba waa dumarka ma fahanti waa dumarka kuwa lacagtooda bixiya war ilaahay ka baqa janna aa galaysiina ma rabnee nimankan xunka ma arkaysid nin xuno wadaad aho gabar markii la kubsada hadlaay ma arkaysid kaaha ya markuu qarax dhaxo mid hadlaay ma arkaysid how dare you maama milyan oo 3 sano hadlaysay oo wiilkeeda la dhaawacay oo dhibaato kasta soo martay a lot of things maama milyan sabayso but ma yeelayno horteena iyadoo noolna wax kuma samayn kartiin inta ku samayseen enough laakiin dawladahan tageena annaga we deserve inaan noolaano kaaho the rest of our lives dhimasho baan ku jireen annaga maxaan ka noolnahay kaaho no ma soconayso dawladaha u tageena ilaahay baa afkana baray we gonna go waa banaan baxeena kaaho meela isku waxaan naga dhamaadan meela iskugu tageena dibkeena sheeganeena I don't care waxa aaminsantaa ani maxay iga galay ani ma ku abuurtay ka hamsa ilaahu big bang ga sheegtay gaara sheegtay I don't care meesha ka imaatay kuwa aan dhalay xataa ani ma abuuran kaaho xaqna uma lihiina control kaaho they came through me but they didn't come from me marka dumaro please diyaar muutiin xaq ma ina 40 sano dhiigeeno ka ibka saan de nololna ma harika nimankaana annaga naga imaadeen hello waxba nimanka ayaa leedahay kaaho annaga they came from us macalinka ugu horeeyo waa dumarka kaaho mi fahanti ninka hadaa u sacabtuntid oo bullshit-ka aa qaadatid wuu kugu tumanaya ha qaadanin bullshit-ka way qaadanayna wadaado maxaa tahay afhuuro shibili umul bala ha idin aragto hadda idin leenahay naacalla idinka iyo shaydaanka aad u shaqaysiinba ku yaalo wariyaa aabahay aniga Soomaaliya dishay nin xuno wadaado gabdhihiisa aan ka warhaynin oo naagihiisa dulmiya saani maamuli kara aniga shibili uraaye wala war حتى تكشيكتي دحال نقول لي هاي وداد واحد محل لها ما عرفت إله بكو حناقة محمد ننطينا قفنا لو مدلايو محمد ازداد يا الباك إحرا وحن كنا هاي كاهو محمد وننطي dadku nabigu u yahay hool idin taala waaye kuweena badanna ma buu ahaa nabi subhanallah hinga warna ala shaydan ku inta dili karteen waa disheen nin dhintay nooma dilaysaan anaga maxamed wuu dhintay see qof nool u dilaysiin wariyaa aniga diinta waxaan ka baxay ka wadaadkii gaalkacay lagu dilay ma xasataa ya shibili inuu maama milyan uu hadana markuu u soo hadlay waxa ay belo haday wadamada joog lahayd uu dili lahaa mujada dad kalkii baa soo hadlay dilaagi baa soo hadlay wadaadkaas oo caruurta yararka iyaga maskaxda ka madoobeynayeen isaga music buu tumay kaaho music waa caafimaad caruuraheena wiilasha yararka ayaa ii soo aruuriya wariyaa music waa caafimaad music maskaxda la shaqaysa maskaxda ku furfurmayso hees markaa daarad waa aragtay kaaho maxaa la dhahaa heesaheena wili dhadhanka laho ya wiilasha codka ma macaana iyo gabdhihii iska baashaalay ma waxay rabaan intay meel ku soo aruursadaan inay baqdin ooga sheekeeyaan iyo shaydaan hadalkiisa waxaa wareejinaysiin waxaana dilay waxaana dhiiginaayo kaaho wadaadada Soomaalida waay hallow mi fahanti waxa saan noo galay waa wadaadada Soomaalida Soomaaliya wadaadada Soomaalida iska qabta wariyaa business bay ku korsamaystaan maxay ka qaadaysiin ani amina meerka aabeen waa soo disheenba idinka disheen nin Soomaaliya dilay aabay kaaho mi fahanti haddana I'm under maxaa dhaha flag of America ma aragtay aan hoos jooga baktigooda wadankiinana uma soo soconno ilaa ay saxadiin ilaa dumar ay hadayna madaxweyne labaad ka tahay kaaho uma soo soconno dad qalatooyin idima soo soconno laakiin adduunka idin baraynaa buugaag baan qoraynaa White House kan tageynaa naacala war ma ku sheega haddaanan ka hadlin Fox News ya nasralli ma dhaho hobli ma dhaho aniga nasralli dhaha haddaanan facadaanka iyo madowga iyo ilaa meel walba lidinka baranin ya naaga manihin gabdhaha Yurub jooga istaaga
gabdhaha maraykanka jooga istaaga gabdhaha kanada jooga istaaga u istaaga yaa maqan gabdhaheena naagaha xunka oo barlamaanka ku jira oo daciifka ahna naayaara waana gabteen ma maanta ogolaateen in caruuro yaryar aad guru ogolaatiin ya diinta waxaan ka baxay gabadhayda markay 9 sano u buuxsantay sababtoo ah nabi dhahayo 6 jir buu allah iigu keenay riyo 9 jirna waan ku guursaday waan ku fuulay ma ii aha nabi haddaa dilaysiina jirkayga dilaysiin wariya ruuxayga rabbigu aadaaya ilaaha aaminsantiina ma aaminsani jannaa noociina sugaysana ma sugayno dhalinyaradeena 80s ka ana caqligooday ku gaareen inay dhahaan waxmaba aaminsaninba they have every right-ku rabbigii abuurtay keena wariya adoo daciifa nagama qaadi kartiin annaga diyaaraan nahay inaan isku wada imaano oo nabad ku wada noolaane dadka muslimka sheeganayo annagaba inaa idinka tegayno uma malaynaynin laakiin dilka markaan aragnay dhibaatada markaan aragnay kufsiga markaan aragnay aan baarnay meeshuu ka imaaday markaasaan ka baxnay ma rabno diin adduunkana lagu gubtay aakhirana janno ma arkaysiinsaa adduunkaaba ku hogteeni adduunkaa naar ku jirtiin waryaa janno waxaa galaya dadka ilaahay adduunkana ugu raaxeeyey adduunka what kind of ben aan uga xaaqaysiin adduunka waxaa arkaysaa wax wada hoogaayo ba'ay markaasay ku leeyihin adduunka dhibaatadaana loo kugu talagalay gaalada adduunka loogu raaxeenaya aakhira laakiin raaxa kuma laha that is a lie from shaytaan ben baa sheegaysaa shaydaan iyo shaydaankiisa adduunka ilaahay nooma keenin inuu maxaa la dhahaa nagu gubo haddaan idin leeyahay diinta aawadatiin oo intay gadaal ka imaatay tiri ilaahay ma jirto aan allah ka ahayn allah ima abuuran aniga shaydaan baan u arkaa maxamedna nebi iima aha ya soomaaliyay haddaad nolol rabtiin free noqda xor noqda maskax buu ilaahay idin siiyey kuwiina ilaahay aaminsan kuwiina kaleeto hol idin taalla waay bal maskaxdiina idinka is ogaada idinka beel gabdhahana soo maaha gabdho soomaali waxba nin ha eedeenina nimankan waa waxay yihiin askeer sababtaa aday kaa imaadeen hallo ha eedeenin raydkaagana inaan u dagaalano uma baahnine inaan gacanta isqabsanno oo runta u istaagno runta iyo jaceyl aan ka shaqeyno war gabdho aan iscafino oo gacanta isqabsanno oo walaalo noqonno oo runta because markaana laf dhabarka waxaa lagu leeyahay hadday iyagana gabaan bal iyaga aan inaan toosin iyaga toosmi doono shool u taalla waay laakiin annagaa istoosinno oo hore u soconno سبحان الله متكلم سبحان الله محل لها وريا ضعيف وحوتيه او هوغيو باي ودا هوغينا ودا بينا شفكو حنا ودا قرن ني والبو نو غرغار ساده على مر هوري تري شيطان با افكينا حتى استعماله الى ودا شياطين هيني مي فهمتي because انت سو ربي شيطانك ان هوغنو او باانو لكن عنبور دheerow mar dambe cid ku dhageysanaysa maleh waa la wada tashtay dhalinyarada maskaxdooda ay isticmaalaysaa يا إذا حو كل هذه ماله ما مليون ضد بيو حساب سنتاي صاحب she is a citizen of the United States شرعي باسبورك أي إيمانيسي أي وضطها صاحب ضد بيليس وقرنتها ما أنت دوح كله لدها يا she's American ما مليون she's not Somali because هو Somali ما يدشاقنا أن هذا دواننا ذنبين ميديش إلا أن dignity إنه وصال لابتو أو شرفته إنه صال لابتو إذا مرة بنو إذا ما صوصعنو because maxaa meesha yaala tuuga joogto iyo lacag la dhacaayo iyo saqajaanimo ma fahanti nasro waa mulxidad la iga dheh haye mulxid iyo kristan waxaan ahayba maxaa kaa galay none of your business ma fahanti naagahan wada feega ah kaahoy waxay ka shaqeeyaan un bal fiiri inta ilmahooda wax bari lahaayeen kaaho inay iscadayso inay dirac naag kale ugu faanto inay nin kale ku mashquusho oo naag kale qabo ya guurkeeniya hogayo ba'ay goormee gabadha markay isku kalsoon tahay gabar kale kuma mashquusho kaaho maanta dun fi aqoon qabaan maxaa ninka iga galay adiga walaashay iga asturay ma ogido ya laakiin xaasinimo inay guriga kale wax laakiin xaasinimadaas adiga buu kugu laabanaa caruurtaaday ku laabanaysa caruurta ka halaawaysa baloo dhan dabka shidaysiin naaga Soomaaliya dabka ashidiin oo guryaha ah ku shidiin oo telefoonada inta qabsatiin anaa kale ku mashquulsantiin aday ka go'an tahay ilaahay ma taqaanin kolbe ya waxa wanihiina la nadiifiya meesha ilaahay ma taalo kaaho mi fahanti qalbigiina nadiifiya oo adiga waxa jeceshay qofka kale ku sameey in kaara qabtiin inaag Soomaali adaa wadanka saa u gashay sababta maxay ahayd kuwa Afrikaanka isdilay kaaho dumarka intay nimanka aruuriyeen waxay dhaheen naagna idima noqonayno aruuraheena disheen waana rafaadiseen laakiin foolxumada socota kaaho
annagaa number 1 ka ah naag Soomaaliya number 1 ka ah sababtoo ah annagaa waxaan korinay baktigan annagaa korinay baktigana dilaayo annagaa korinay wadaadka xunka oo labada guursanaayo hadday intay albaabka u tuuraan ee dhahaan waryaa waxaa tahay mala waa you are nothing banaanka istaajiyaan oo labada gabdhood see uu u sheer waryaa see nin u sheer gareynaysiin biriq ay tiri maamuliyun biriq ma laba naag galo naa la sheedaan ku yar naa isku xishooda oo rightskiina ogaada oo idinkiis ogaada oo waxaati midi adi haddaa rabtid inaad niyadda dhisatid kaaho oo ay siifsiisid mid kale kugu mashquulaysa rabtid inay niyadda kaa disho laakiin doqonaytan niyadda qofka kale ka dilayso aday niyadda kaa dilan tahay sababtoo ah aniga markaan gabar walaashay arko inaan niyadda u dhiso ama hadal macaan ku dhaho ma ogi sababtoo aan bayn saa la yeelo dhaqmaan jeclahay adi haddii lagu soo abuse gareeyo walaalay ilaahay ku daaweeyo annaga hana abuse garaynin kaa waa kugu dheeraaday abaayo adaa iisoo kokoobi doontid dumarkan marka society-ga waa dumar abaayo mi fahanti macallinkii dhan hadduu ka jiifo macallinkii dhanba hadduu isaga isliidaayo kaaho hadduu isaga isliidaayo ninka hana liido hool u taallo because farad buuba noo arkaaba I'm sorry konton ay na dhahayaan but shaydaankii maxamed wax u soo dhiibay wuu ogaa inaan boqollo nahay mi fahanti waxa waaye dee waa nahay I'm sorry ilaaha naga dhigay because doqomininow naag la'aana meel ma gaaraysid because qofkii kula talin lahaa garabkaagii aragtaa inaad niyadda ka dishid garabkaaga aragtaa inaad niyadda ka dishid intee aadee marka see maxaa noqonaysaa nin dhan oo garabkiisii maaragtay teeda kale diintan la isdilaayo abaayoy shaydaan bay ka timi ilaahay kama imaanin waa idinkaga cararnay diinta la isku dilaayo walaalayaal waa idinkaga tagnay jeefka gadaala gashta sababtoo ah aniga muslimna waxaan dhihi jiray ilaahayo hebelow janno muu sugayaa hebelay janno may sugaya jannadaas waxaan dhihi jiray anoo maaragtay markaan jannada tagaa waxaan leeyahay janno kale ma ii raadi kartaa ma fahanti jannada dadka qaarkood ay sugayaan ilaahan ka magan galnay ya jannada dadka qaarkood ay sugayaan kaaho dad qalatooyinka hadda ay sugayaan bal shibili oo dad dilaayo bal xataa maalmay soo fadhiisanin kamay hadlin wixii ay dil shibili kali maxaa u leeyahay wadaad kaloo xamar ku xiran maxaa la dhahaa kaaho ma aqaani oo aan keeni jirnayaan ya waa dad qal kale ha wadaad waa dad kaloo kulligood shibili ma aha umul isagoo wax dilay ma arkin laakiin waxbuu qaqasaa isaga wadee waa isla shaqeeyaan waxaan mogtahay tuu kaleeto xamar ku xirnaa caruuraha isticmaalaan kaaho filin aan aniga markaan diinta ka baxay wiilal gacmaha laga goynaya lugaha waxaa laga yaabaa inay waxba xadin oo la yidhi al-shabaab noqda ay diideen May maqashaa hoob may maqashaa hoob maqashaa magana
صحيح على أيضا صومالي سأقول تاجن بالدليل لا يا heeska saadaca loo soo gabagabeynaya waa ka baxaya Mycket Borgula, fräsch, god och lätt.
saada cali warsame eebaha u naxariisto runtii waxay ahayd haliyeed waxay geesiyad waxay ahayd qof wanaag uu buux dhaafiyey marka qof baa igu yiri dhaanto marka waxaa samaynayaa kuwaa ku caaya kuwaa dhilo kuu soo qoriya kuwaa ku dhaway fulan maxay kaa filayaan haa hees macaawe waxaan dhahowe waa inaad kuusoo diraa luuqa dhegeysataa abwaan bay waxay ugu jawaabtay abwaan heesaa asna ah oo la dhaho cabdinuur allaale heeskii markaas waxaa qaaday gabar kale marka hore cabdinuur baa gabadha u jawaabaya saadaa soo gashay saddex marka laxanka iyo muusikada way iska leeyihiin waxaa la dhahaa bintu cumar gacal baa bilaabaysa fanaanad la dhaho marka cabdinuur allaala bintu cumar gacal u jawaabay sanado badan ka bacdi haddana waxaa u jawaabaysa soo gashay saada cali warsame eebaha u naxariisto bintu cumar gacal way nooshahay intaan ogaa cabdinuur allaalna wuu nool yahay nabad ha ku noolaadaan iyo barwaaqo waxaa dhintay saada bis marka hees
qofkan wuxuu leeyahay hadhiina weli Oppdag hvits verden av muligheter. For Bena, hvit er skånsom. For bikinilinjen, hvit er nøyaktig. Okay. Oraska mahad qofkan hal mar buu For leeyahay ansiktet, oraska hvit etterlater haga kun daawan vinkler. sadaqad Men bare du vet. haga daawan geeska Afrika oo dhan gobonnimadeeda waxa bartilmaameed u ah gobolka Sool waana wax la wada og yahay oo aanay cidina qarib nin xabad hid haray adigoon waxuu inta lagu maale waan hubayo lasxaanood gabeeloy u tahay adigoon waxuu inta lagu maale waan hubayo lasxaanood gabeeloy u tahay habla qurux bukaatiyaha karnimo loo hibe yalla asxaanood laga helo habla qurux bukaatiyaha dhammaantiin walaalayaal waa mahadsantiin intii igala qayb qaadatay inta waxaan ka xumay oo raaka raali gelinayaa jaaniska u weysay inay ka qayb qaataan si gaar waxaan la hadlay gabdhaha inay isku duubnaadaan oo ay raggu isu kaayadirinin gabdhaha dhiban in lasoo dhaweeyo kuwa dhaawaca in lasoo dhaweeyo kuwa waxaysa in lasoo dhaweeyo kuwa caruuraha walaal kuma soo qaban kara geelo wuu iga diidan yahay inaan kusoo qabto walaalayaal isku naxariista dhammaan gabdhaha luuqa iskugu diraa marka aan wada hadalno aan wada doonno si layfa aan wada doonno haddaan rabno annagu haddaan iskhilaafno waa isceshan karnaa hadday gabarow nagu xadgudubto waan qabsan karnaa waxaan dhihi karnaa walaal nadaa walaashaa baa nahay yaana isku qaadina cayb fog iyo in qofka aan jeclaano in la dilo dad cadow ay dilaan aan ku fiirsano sidaa ayaana sameynin markaa isgarab siina waxaan ku faraxsanahay inaa hob aa fahantay oo isku dareen aan nahay oo aan gabdhaha dhammaan isgarab taaganahay dhammaan walaalaa nahay waxaa dhab ah inaan dhammaan gabdhaha aan jeclahay runtii iyo wiilashaba waxaan aad uga xanuunsadaa dhammaan hooyooyinka caruurta oo la dulminayo gabdhaha ooyaya gabdhaha dhibaataysan dhammaan waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad runtii laafli weli way la joogtaa walaalaad baan kuu jeclaa waa mahadsan tahay fikir qurux badan baa ka dhiibatay codkii wuu gogo-ayay facebookyada waxaan ula wadaa dacwad iyo magaranaysaa dad baa raalli ka inaan hadalno in la is aamusiyo anaga uma horeyno walaalayaal taariikhyaha bulshada dhan akhriya haweenku markay halgamayaan waa la dilay dad baa la toogtay gabdhaa lasoo toogtay gabdhaa lasoo dhibaateeyey marka aan noqono gabdho isgarab siiya way nagu dhacayaa in naloo hanjabo in gabdho waddanka lagu laayo in ma garanaysaa ay na dhibaateeyaan in bulshadu nacaydo laakiin halgankeenu yuu noqon mid dhabar ka jaba oo annaga aan isku ficilsano waxaan ka codsanayaa gabdhaha hooyooyinka meediyaha ku jira carruurta walaalayaal ha iska caayanina ilmaha waxba ma galabsan gabdha waxaan arkay gabdho kale ku xanaaqsan oo carruurtooda caayayaan biliis walaala xaliila faan la tuuri doono feenta lagama dhameeyo haddaa adinku isku xadgudubteen carruurta qofka ha ka caayanina carruurtiisa walaalaha ha ku xadgudbinina waxaan nahay walaalo soomaaliyeed waa inaan isjeclaanaa ma ahan inay hooyooyinka ayagoo carruurta iska caayaan ama nimankayda qaba labadaba walaalayaal ha sameynina intaa codsi bay iga tahay adinku waxbaa idii sheegi kartaa anuguna waxbaan idii sheegi karaa diyaar baan u ahay wax sheegiina diyaar baan u ahay inaan idin dhegeysto diyaar baan u ahay inaan wax la qaybsado marka waxa weye aan iskarab istaagno intaa weye annaga ay sixi karana laakiin haddaan isnabcaano haddaan iscayno waan kala fogaanaynaa
cabdisalaam maxaa idinka maqan wala halgamaysaa nimanka qaar waa wiswis weeye hadalkooda waa wiswis bal fiiri ninkii dadkii aan dhalnay oo korinay baa wuxuu ku leeyahay maxaa kaa maqan wala halgamaysaa waa dad iimaan kala ragga badankooda waa dad diin iyo balaayo ku qaraabto aad u iimaan loo daciifa ninka ku faraxsan hooyada inay qashinka gurto laakiin ay xafiis fadhiisan oo haddana ku ilaahay baa xaq u siiyey ilaahay baa xaq u siiyey kaa waa inaan ka dagaalanaa kana ogol in gabadha inuu isqarxiyo dadkana hor istaago kaa waa inaan ka dagaalanaa waxaa dhawa maxaa dhaha hob ay dhahday in aan dowladaha u qorno waraaqo codsiyo iimeella aan ugu diro madaxda ugu sarreysa soomaaliya waxay ka mid tahay adduunka ragga soomaaliyeedna nama abuse karaan noomala dhaaran karaan baarlamaanka soomaaliya waa in sharciyo la hor keenaa haweenka ay ku leeyihiin kuraasta qayb sare ee xaquuqda dumarkana lagu ilaalinaya hadday samayn waayaan soomaaliya adduunka laga caawiyaa waxaa si dhab ah aan idinkugu sheeganaa been ahayn iimeelaan diraynaa cod baan geynaynaa safaaradahan la hadlaynaa looma dirayo dhaqaalaha soomaaliya la siiyo haddii anagu aan ku hay dulmi ay nagu hayaan taa waa dhibaataa ma tihidan jasiirad ka baxsan adduunka ma tihidan jasiirad waxay rabta iska samayn karta ma tihidan jasiirad haysato hub casri ah oo dhihi karta waxaan rabnaa samayn karna waxaad tihiin dowlad yar oo la caawiyo naguma tuman kartaan xaquuqdeena gabdhaha xaquuqdooda aad ku tumanaysaan aad dulminaysaan oo kufsanaysaan ma samayn karaysaan mar dambe anagu luuqadeena aan kula hadalnay laakiin go-aan waxaan ku gaaray runtii dhammaan gabdhaha haddaan nahay inaan dowladaha si dhaba ula hadalno ma garanaysaa waxaan gabdhaha badankooda hadlaya maanta halgan ku jira organisation ba waxay ka yihiin member way badan yihiin cod baan leenahay canshuur baan bixinaa baarlamaanaadka markaa canshuurta aan bixina in nagula korbaasho oo nagula dhibaateeyo ma dhacaysataa runtii dowladdu waxba iyo ismaan dhaafin dalxoo waxaan arkaya dhiigu ku karsan yahay muxuu dhiigu ugu karayaa marka xaquuqda haweenka laga hadlo maxaa xanaaqaysaa dalxoo baarlamaanka ka mid tahay soo qabiil meesha kuma keensan waa inaad u dhiglato dhahdo okay maxaa samayn karnaa maxaa sharciya laakiin aad dhibaatadana haysata aad dabooshaan oo waxa dhibaatada samaynaya ay rag yihiin waxa u hiilinayna ay rag yihiin taa waa inaynan dhicin kuwa maanta dhahaya hala dilana ay rag ay yihiin gabdhaha u hiilinaya ragga oo daba socda way soo noqon doonaan runtii marka waan idin mahad celinaya intii dhegaysatay intii sheergaraysay intii kala qayb qaadatay aan isgarabsanno runtii walaalayaal aan isgarabsanno taa weeye sida dhabta ah taa weeye maxaa la dhahaa i sheege amaasantaasi haan walaal gacol aad baa amaasantii gabdha aad geysiin oo abaa runtii igula xiran walaalayaal yaan ahaan public keliyana inta badan aan iswaraysanno anagu yaanan kala baqin gabdhaha iska daayan codadkii waxay iska duubayaan walaal ceeb wey oo haddana banaankaa iskeenaysaan iska daaya markaa luuqa iska wareysano oo isku sirbaxno iswareysano ma u baahno markii dagaal dhaw ina codadka banaanka la geeyo taa waa ceeb weeye halgankeena waxay ku tahay dhabarjab gabarnimadeena waxay ku tahay dhabarjab biniaadamnimadeena waxay ku tahay dhabarjab soo taa aan iska daano walaalayaal taa ayaana samaynin waa ninka waaninaya intuu halganku socdo waxbaa qaldamaya laakiin qaladaadka waxbaan ka baranayna isma dhiibayno wax walba inaga qaldamay waxbaan ka baran doonaa آمين والله معنا هوب آمين love you so much sidoo kale walaal gabar wanaagsan oo qalbi fiican baa tuun ku faraxsanahay inaa ahado shay dhammaan gabdhaha meesha ka hadlay aad baa idinkugu mahad celinaya hob naciimo lovely laba naciimo malmalyuun khadra gabdhihii kale ay loobay qurux gabadha la dhahayay gabdhihii commentiga qorayay sihaam oo halgamayay oo raggana caaya naga qabanayay marka wixii ay tahay meesha ka biloobi doonaa ballan ka qaaday kaafiyo wala dhammaan waa idin salaamay waxaan idin leeyahay habeenka ha idiin wacnaado garab iyo hiil waa inaan isku hiilinaa maalintii hal gabar la dilo dhammaantii waan la dili doonaa ogaada ha okay waan furanaynaa abay hob waan furanaynaa brid way nala joogtaa aad bay ugu fiicanta brid abay group inoo fur marka aynu ku sheekaysano aynu ku dhamaysano arrimaheena marka runtii anigu britol free baan marka caawooda hadli karaynaa so maasanta walaal so brid way ku fiican tahay lovely brid walaal inoo fur group taladay soo jeedisay qofta yiraahdo hob aan qaadano aan noqono kuwo ismaqla aan noqono kuwo isku hiiliya
kuwa ilmaha haya waa annaga kuwa dhibaataysan waa annaga kuwa la kufsaday waa annaga kuwa shaqada aan haynin waddanka waa gabdho runtii kuwa soo tahriiba doonida ku dhalaya waa annaga dhammaan dhibtu waxay saamaysay guud ahaan iyo gaar ahaanba waa annaga iyo carruurteena kuwa carruurtooda xabsiyada ku jiraan waa dumar kuwa carruurtooda laga qaatay oo maxaa la dhahaa ooyaya oo caddaan ka qaatay waa haween dhammaantiin walaalayaal ayaana fiirinin fakar kala duwanaanshaha gabadha aan xijaabka qabin gabar masiixa ama gabar muslim ah gabdhaha waa gabdho intaasaan fahmaynaa waa soomaali luuqadan isku caawinaynaa garanaysaa marka waxaan isku caawinaa soomaalinimada waxaan isku caawinaa bilaadanimada anagu waxaana haddiina abtirsano dhammaan waxaan noqonaynaa ehel qaraabo ma garanaysaa dad isgaranaya saaxiiba ah soo qofna qofka kale yuu nici marka gabdhaha mar kale la hadlaya gabdhaha walaalayaal garab isi siiya si dhaba in lala hadlo dhab ah garab aan isi siino markaan garab isi siino ragga xun waan ka guulaysanaynaa ragga xun waynu ka guulaysanaynaa niman dagaal qof kula soo jiray dhowr sano ma ahan inay maanta ku marmarsiyoodaan ee dagaalka si kale u muujiyaan feministu waa arrin muqadisa waana arrin u baahan inaan garab siino si aan u halno cadaalad iyo xaquuqdii cadaaladda raadinayna maxay tahay waa inaan ilmaheena nagala qaadan oo nagala qaadan gabarnimo waa inaan naloo dilin gabarnimo waa in aan naloo kufsan gabarnimo oo aan korkeena annagu aan xora u nahay oo nala xoogin okay qofkan bal fiiri caqligiisa intaasuu siiyey ninka soomaaliga maxamuud hebelow waan bilowaya kanaan ka qaadayaa halkan marka dhac iska bax kan wax kale ma soo qoro soomaa saas bay noo ahaanaysaa habeen wanaagsan habeenkaani wacnaado dhammaantiin inta gadaal kasoo gashay dhammaantiin waa mahadsantiin walaalayaal igaraha lahaad intaas soo qaban waayo gadaal kasoo